wax wanaagsan dhageystayaal warkii oo dhan aynu ku bilownay ciidamada ammaanka ee Jubbaland ayaa waxaa la soo warinayaa in saaka baaritaano ay ka wadaan magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah oo ah maamulka Jubbaland sidoo kalena la filayo in dhawaan halkaas ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi dhanka kale taliyaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo isagu ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa waxa uu maanta ku wajahan yahay magaaladaasi Kismaayo haddaba dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda magaalada Kismaayo baaritaanada saaka jira waxaan goordhow ka wareysanay Cabdilmajiid Cabbaas Aadan oo u waramay Cali Suxayfa waa mahadsantahay magaalada Kismaayo ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada kadib shalay shaqaaqadii ka dhacday airportka magaalada Kismaayo taa oo ay ahayd in garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ay ka soo degi rabtay diyaarad siday ku dhawaad 94 ciidanka commandoska ee Ethiopia waxaana saakay magaalada ka soconaya qaybaha kala duwan sida xaafadaha ay ka kooban tahay Kismaayo howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka sidoo kale maanta magaalada Kismaayo ayaa waxa lagu wadaa in uu soo gaaro taliyaha guud ee ciidamada AMISOM General Tigabo Yilma waana iyadoona ujeedka safarkiisa loo aanayay ama loo sababeeyay kadib arintii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo taa oo ujeedkiisu uu yahay sidii arintaasi xal waara looga gaari lahaa waxaana magaalada ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dhinaca ciidanka ahi guud ahaan marka aad fiirisid magaalada amnigeeda waa uu degan yahay laakiin hadal haynta ugu badan ee saakay goobaha lagu qaxweeyo ay dadka shacabku hadal hayaan ayaa waxa ay tahay arintii shalay ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Kismaayo waa mahadsantahay wariyaheena Cabdilmajiid Cabbaas Aadan oo magaalada Kismaayo ku sugan waxa uu ka warbixinayay baaritaano saaka laga wada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose wixii warar ah ee ku soo kordha xaaladda Jubbaland waxaad ku dhageysan doontaan wararka iyo barnaamijyada xiga ee KNN sidoo kale boggayaga radio kulmiye.net ayaad kala socon doontaan hadba wixii soo kordha markana Shabeellada Dhexe dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa saaka waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay kooxda macawisley ay ku leeyihiin magaalada Jowhar duleedkeeda oo xarun u ah gobolka Shabeellada Dhexe waryaheena Bashiir Cali Daahir ayaa goordhow warkan inoo soo diray dagaalyahanada al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday bar control oo koox macawisley ay ku lahaayeen deegaanka Shimbiro oo qiyaastii magaalada Jowhar dhinaca galbeed kaga beegan ilaa iyo 7 kiiloomitir weerarkaasi ayaa lagu soo waramayaa in ay labada dhinac rasaas ay adeegsadeen sababtay in ay ku geeriyoodaan ilaa iyo 8 ruux oo la sheegay in labada dhinac ay ahaayeen sidoo kale dhaawac ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle dagaalyahanada al-shabaab ayaa weerarkan ku soo qaaday barta control ee ku taala deegaanka Shimbiro ee galbeedka magaalada Jowhar sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen rasaas xoogan ay adeegsadeen labada dhinac oo dhaxmartay kooxaha macawisleyda iyo dagaalyahanada al-shabaab ee weerarka soo qaaday muddooyinkii la soo dhaafay ayaa galbeedka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa ka socday dhaqdhaqaaq ay wadeen kooxo macawisley ah oo doonayay in ay la dagaalamaan dagaalyahanada al-shabaab taasoo jawaab ay ka bixiyeen al-shabaab weerarna ku soo qaadeen bar control ay ku lahaayeen deegaanka Shimbiro oo ku yaala galbeedka magaalada Jowhar Bashiir Cali Daahir radio kulmiye Jowhar wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in sanadkan xujay Soomaali ah ay ku geeriyoodeen dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya tirada xujayda Soomaalida ay geeriyootay iyo sababaha waxaa warbixintan ku eegaya Farxaan Maxamed Xuseen wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka warbixiyay xujayda sanadkan ku dhimatay xajka kuwaasi oo ay ka mid yihiin Soomaali wasiirka ayaa waxa uu sheegay in sanadkan ay xajka ku dhimatay 4 xujay Soomaaliya oo 3 ka mid ah yihiin haween isagoo ugu mahadceliyay xujayda Soomaaliyeed sida ay iskugu dulqaateen oo isu garab istaageen mar uu hadlayeen waxa uu yiri inta tirada ilaa ay hadda aan ognahay xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan ku geeriyootay waxay gaaraysaa ilaa 4
waa 3 dumar ah iyo 1 rag ah intaan ognahay marka insha Allah waxaan aad ugu mahadcelinayaa xujayada Soomaaliyeed sida iskugu dulqaateen naxariista u muujiyeen mid kale uu ka warqabo isku naxariisanayaan kan xanuunsan isbitaal loola cararayo asxaabka loogu wacayo dhowr shirkadood oo sanadkan qaaday xujayada Soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay inay xujayada kula dhaqmeen qaab aan wanaagsanayn isla markaana aysan u fulin adeegyadii loogu talagalay xujayada Soomaaliyeed kuwaasi oo sawir laga soo qaaday muujinaya iyagoo jiifo meel aan wanaagsanayn markana haddii aynu eegno Koonfur Afrika waa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaasi Koonfur Afrika ayaa waxa ay dib ay u bilaabeen inay furaan goobahooda ganacsi kadib markii maalmihii u dambeeyay ay la kulmayeen boob loo geysto waxyaabaha ay gadayeen ama ay iibinayeen wariyaha idaacadda kulmiye ee Koonfur Afrika Sharmaake Nuur UK ayaa warkan inoo soo diray waxaa inta badan dib loo furay goobaha ganacsi ee boobka laga geystay maalmihii la soo dhaafay magaalada Soweto iyo deegaanada kale ku dhow waxaana xalay ilaa isaaka si cad u shaqeynay goobahaasi ganacsi walow cabsida weli ay taagan tahay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa ku guuleysay in dadka deegaanka magaalada Soweto ay ku qanciyaan in dib loo furo goobahaasi ganacsi Maxamed Cumar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa ii sheegay in dadka deegaanka kala hadleen inaanay soo noqon boobkii halkaasi ka dhacay mar kale wuxuu kaloo hadalkiisa ku daray in ay qiimeeyeen khasaarihii ka dhashay boobkaasi wuxuuna sheegay in lagu qiyaasay lacag kor u dhaafaysa $150,000 waa la qiyaasi karaa xaqiiqdii dukaamada Soomaalida maximum dukaamada goobaha noocaas ku yaal oo kale waxay ku furiyeen $20,000 iyo wax la mid ah ku furiyeen marka dollar ahaan waxa loo qiyaas kartaa 10 dukaan oo $20,000 qiyaastii wax ka badan lacagta ugu yar waxaan kala hadlayo waa qiyaas kartaa lacagta ay noqon karto $100,000 lacag ka badan ayaa gacanta Soomaalida ka baxay ilaahay waxaan u bariyaa ilaahay bedelka qabiilay inuu bedelo si kastaba ahaatee ma ahan markii ugu horeysay oo khasaare intaas la eg la gaarsiiyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqana dalkan Koonfur Afrika Sharmaake Nuur UK Kenan South Africa sida faahfaahinta warkan ay ku eegayso wariyahayaga Xafsa Khaliif Cumar Somaliland ayaa waxa ay ka hadashay baaq uu dhawaan u diray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani baaqaas oo ah in Puntland ay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho Somaliland maxamed muuse diiri wasiirka warfaafinta Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo baxay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani kaas oo ahaa in wada hadal dhab ah ay la gali doonaan Somaliland wasiirka ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ay ka dhaceen dagaalo iyo dhibaatooyin badan hayeeshee uu rajaynayo inaysan soo laaban isagoona shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin in ay Puntland ka wada hadlaan horumarka shacabka sidoo kale wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa waxa uu tilmaamay in maxaabiis badan ay sii daayeen Somaliland iyo Puntland isla markaana dhankooda diyaar ay u yihiin wixii ay dani ugu jirto shacabka deega Somaliland iyo Puntland oo ku aadan dhanka nabadda runtii nin odaya jooga muxuu ahaa Puntland oo ka odaya waxa noo taalay warbal inaan dhibaato dambe dhicin oo tan maxaabiista la sii deynay ee weydeen inaanay dhibaato dambe dhulka ka dhicin dalku kuma xadeysna ummaduhu isku yimaadaan xadbeeleed kililka waa kan Djibouti waa tan mid walba dad reer Somaliland ku jira oo kamid ah miyaynu leenahay inagu waa muxuu ahaa dad baa naga degan oo waa dhulka waa idin leenahay ma lihin dee waa xeer la dhigay waa nidaam la dhigay Ethiopia xaqeen waxaad ka leenahay kala barbar reer Somaliland ku nool halka dadka ku isirtirsada sinaba uma oran karo jigjiga iyo mirhablaaye iyo waa aynu leenahay ma oran karo waayo xuduud sharciya oo AU muxuu ahaa aqoonsan tahay oo ah xadadkii muxuu ahaa isticmaalka ama dawladihii deeg wax ku weysan jiray xadadkii dhigeen laguma muxuu ahaa xad gudbi karo taana waxaan leeyahay aad baan ninka u qadarinayna laakiin waxaanu ka wada hadlaynaa wacdi yahay kullaba ma kala maarano waxaynan u kala maarno dadka Ilaahay iskarab dhigay jaarkaaga dee aduma dooratay Ilaahay baa ku dooro ku agdhiga dadka aynu jaarka nahay ee inaan is dhowro inaan wada ganacsano
inaynu muxuu ahaa heshiis ahaano aynu muxuu ahaa is-ixtiraamno wey. dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani uu somalilan ugu baaqay inay wada hadal lagu dhameeyo dhibaatooyinka ka dhexeeya labada dhinac. somalilan iyo puntland ayaa muddooyinkii dambe waxa ay isku haysteen deegaanada ka tirsan gobolada sool iyo sanaag.